بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan fursad weyn ah inaan wareysiga ay qaadisid aad iyo aad aan ugu faraxsanahay haddaan dib u soo noqdo aniga magacayga saddexan waxaa la yiraahdaa Axmed Jaamac Axmed sideedaba waxaan ahay jilaa oo filimada romansiga ugu badan sameeya iyo arrimaha bulshada haddaan dib aan u soo noqono filimkaygii ugu horeeyay aan sameeyay intaana filimkaas sameynin magaalada Muqdisho ayaa waxaan ka bilaabay wargeys la yiraahdo ayaamaha wargeyskaas ayaan waxaan ku qori jiray toddobaadkii laba maalin maalinta Arbacada iyo hadda qisadaha jacaylka iyo qisadaha socda markii dambe Universal TV ayaa ogaatay marka xiriir ayaan wada sameynay sidii aan waxay iga codsadeen inaan filim u sameeyo filimkaas oo la yiraahdo hubsiimo halbaa la siistaa filimkaas sida runtii aad iyo aad u fiicnaa waxayna ahayd 2008 bishii 8aad aan bilaabnay filimkaasna waan ku guuleysanay waxaana ila jilayaal caana maxamuud carab marka la yiraahdo iyo Maryan Cali Galay Xasan Marshaale dad badan ay ila jilay filimkaas ayuu ahaa filimkaygii ugu horeeyay aan sameeyo alxamdulillah waana ku guuleystay ma hadna waxaan ugu celinayaa dadkii dhammaan filimkaas ka soo qaab ka bacdi aan haddana waxaan bilaabay inaan taxane aan u sameeyo filmadii aan bilaabay waxa igu xigay filim kale oo asagana Muqdisho aan ku sameeyo waxa ila jilaaga weyn ama ninka turjumo oo kale turjumida oo filimada Sam Brojozo Yacko la yiraahdo ayaa filimkaas aan aabo u ahaa dhinacna waxaan ka jilayay actor dhinacna waxaan ahay aabo markii dambena wadarta guud ee filimka aan sameeyay waa 9 filim ilaa hadda la sameeyo 4 filim waxaan ku sameynay deegaankeena oo jigjiga ah filimkii ugu horeeyay aan sameeyo ama aan alifo soo saarana aan ka wuxuu ahaa deegaanka filim la yiraahdo Kaama Quusan oo Universal TV na u sameeyay sabacdina waxa jiray ka horna waxa jiray Hargeysa naftirkiisa waxaan ku sameeyay 2 filimkaas oo la yiraahdo oo mucjisada adduunka oo dhan qabsaday oo la yiraahdo Kaama Filayn oo aan u sameeyay Astaan TV aan u sameeyay ahayd filimkaasna kama maarmaan ku daba xijiyay sidii waxaan noqotay dadaal waa gaari doontaa waxaan kala sameeyay filimka la yiraahdo Astaan Jacayl waxaan kala aan sameeyay filimkeeda Far iyo Faraanti iyo filimkii maanta toddobaadkan soo baxay oo aan nabar aan daawo lahayn oo fikradeedii wixii uu ahaa marka waa professionalkayga filimada anoo cibro aan ka soo qaatay oo khibrad ahaan aan u lahay sida filmadii hore Mareykanka Hollywood iyo Bollywood ahaan aad u daawan jiray yaraanteedii ilaa imikana aad hobbigayga waa dhinaca filimada marka loo eego طبعا waa sax filimada samayso waa filmo gaagaaban marka loo eego afaad kale waa filmo 50 daqiiqo 40 daqiiqo saacad ka kooda socdaan saacad iyo xogaan ka kooda socdaan صح bal feedback shacabka ku siiyaan intii wallahi filimkii aniga igu mucjisada bada oo aan isleeyahay filimkaas ayad filimkii la yiraahdo Kaama Quusan Hargeysa aan ku sameeyay oo hadda YouTube ku jira milyan iyo bar ayay maraysaa viewskiisii marka dadkana aad bay jecel yihiin markay noqoto dhinaca Facebook dhinaca website markastina waxay yiraahdaan inaan dadaal aan sameeyno sidii filimaan kale aan ugu soo saar lahaa dadka qaarkoodna waxay yiraahdeen waxa tahay aabihii jacaylka ama father of the Lord marka filimaanta anaga aan sameeyno waa filimaan aan dhihi karo maanta yani af Soomaalihan saaxadda adduunka filimada oo kale qayb baad ka qaadantay in kastoo caqabado ay jiraan oo dhinaca qalabkii iyo dhinaca materialkii magarad laakiin annaka waxaan sameeynaa dadaal si aan shacabkeena ama dadkeena Soomaalida oo
dunida ku dhex nool aan tusayno inay filim Soomaalina uu jiro la jaan qaadi karno filimaanta adduunka dadkana aad bay noo xiiseeyaan filmadeena runtii deegaankaygana waa filimaanta hadda aan ka bilaabay wayna socon doontaa wax kasta aan ka hadlaa dadka deegaanka filimkii ay jeclaadeen waxay ahayd filimkii la yiraahdo dadaal waa gaari doontaa oo dhalinyaradan waxaan ka support gareynaynay mobilada dhaca yani inay iska daayaan waxbarashadoodii ay ka tageen dib ugu soo noqdaan inay barina heer gaari doonaan oo xoogooda ay maalaan marka shacbiyad fiicanna waan haysanaa aniga kooxdaydan hadda jigjiga ku nool waa ka sabti jigjiga kulley intaan ka ognahay dadka filmada kala jira afartaa film markaan eegno waa dhalinyaro cusub aad iyo aad kuma aragno dadkii hore fanka deegaanka ku jiray 30 sano la soo dhaafay sax balse dhalinyaro kala duwan ayaa kala qayb qaatay marka dhalinyaradan qaabkeed ku heshaa sida fursadan ugu abuurtaa waa su'aal fiican oo meesha ku jirta aniga horta deegaanka waxa laga 2 sano iyo meelaas iyo bar ayaan deegaankan hadda aan imid oo aan jeclaystay inaan deegaankaygana meesha aan ku dhashay inaan horumar aan gaarsiiyo taas waa mid way jiraan dad fanaaniin iyo jilayaal hore laakiin inta badan aqoon saas isku ma lehin qaar aan bartayna waa jira adduunkana waxa la yiri wixii cusub caalamka jecel jiil baa bedela Soomaaliya aniga jiilal cusub baan arkay oo ayagoo san wiligeed film sameeyna tusaale ahaan haddaan ku soo qaado haddan aktarka filimada badan ila sameeya Ahmed Rashid afartii film aan ku shantii film aan ku sameeyna afar buu ila sameeyay maalmaha kamida anoo dariiqa socda suuq ayaan iska hornimid markaas uu igartay inaan filimada sameynayo markaas way qabtay salaamu calaykum wa calaykum assalaam magacayga Ahmed Rashid la yiraahdo ana Ahmed Jaamac leeyahay si fiican aan ku aqaana nin aad loo yaqaana tahay adeer ma laga yaabaa inaan ka fiicabnay waxa soo dhahaa marka sidii aan ku sheegay waxaan doonayaa inaan aktar noqdo yiri gabar teleefoonadan kala qaadanay filimkii ugu horeeyay astaan jacayl buu ahaa teleefoonkan u diray wuu yimid marka maalintii ugu horeysay aan baraayay macnaha waa nin active runtii marka loo hadlo waana aragtay filimada hadda uu sameynayo sidii aan asagana aan ku soo saaray gabdho badan jira wiilal badan jira waxaan jecelahay kuwa kale oo fara badan cusub ayaa hadda ay diyaarsan kuwii hore aan sheegaysidna haddaan helana waa okay way laakiin anu waxaan ka jecelahay xaqiiqdii markaan kula hadlo xasanow wixii cusub caalamka jecelahay dadka la jaan qaadaya ayaan u jecelahay kuwaasna waa dad khibrad leh oo jilayaal waligooda laakiin aqoon la'aana way jirtaa mustaqbalkana insha Allah inaan wada shaqeyn aan sameynana aad baan u jeclaan lahaa Ahmed Jaamac filmada tisho badana aabba ayaad ku jishaa door kale oo tisho ma la waayay aabbanimada ma jeceshahay misooyay su'aal aad u fiican horta waxa jira filimkaygii ugu horeeyay aktar baan ahaanku laakiin markaan dib u soo noqono taariikhda filimada adduunka aktarku asagoo dhalinyaro markuu noqdo marka u dambeysana wuxuu galaa aabo laga yaabaa marka dambena awow inuu galo qowado marka tusaale haddaan ku soo qaado meel yaraan ka soo filimaantii hore Hindiga Raj Kapoor wuxuu dhalay Rish Kapoorna wuxuu dhalay Ranbir Kapoor macnaha waxaan mar waxa jirta awow uu matalayo qofkii marna adeer matalayo laakiin su'aashaas waxoogaa yarda culays bay ugu noqotay maadaama aad tiri waxaan ku tusi doonaa filimkan hadda soo socda ama kan ku xiga aan sameyn doono insha Allah inaan aktar xataa aan jili karo waa ku tusi karo oo romance ah gabar yaro oo ani aan jeclaanayo maalqabeen aan ahay iyo ayadana mid kale ay jeceshahay aan soo jiidanayo qaabkaan u jili doonana waa arkid habka romance ninka weyn inuu jili karo ayaan ku tusi karaa insha Allah arintaasna balan aan ka qaaday waan wada fadhinaa marka fanka Soomaalida caqabadaha hortaagan siiba jilitaankan qaybtan oo qayado qayb cusub aad aan loo barin ko hasa hadda goor waxaan naqaanay ruwaayad baan naqaanay masax lagu jilo waxaan kaloo naqaanay heesa fara badan hadda wixii soo koobmaya oo hadda jilitaankii waadiga xaggan iyo leexanaya soo caqabadaha hortaagan maxay tahay seeso looga gudbi karaa wasla waa su'aal meesha taalo horta waxaan waa actor la yiraahdaa ama fanaan oo heesa qaadayo ama jilaa haduu yahay wasaad u sheegtay hal shay ayuu sameeyay ayuu cirka tagayaa
marka Soomaalida maxaa sabab uu cirkaas u tagi waayay tusaale ahaan hadda waxaa soo cararabaa xilliyadii hore riwaayadaha jira riwaayadaasna masrax un bay ahaan jirtay marka ma ahin dad shacab ah markan ama macna fanaan iskiisa ma jiri jirin fanaaniintii waaweynaa oo dhan hadda waa bari horseed minaamin saasun baa ahayn dawladda hoos imaan jireen oo dad mushaar qaadanaya ahaayeen burburkii dawey 9 kii wixii ka dambeeyna fanaanin aad u fara badan oo aan aad u dhiirigelin way soo baxeen iyo jilayaal fara badanna way soo baxeen marka hadda shayga kaliya annaka filinkeena aan soconaynin ani waxaan u sababeyn karaa dadka shacabka Soomaaliyeed waa marka koowaad marka labaadna waxaan is dhihi karaa ma jiro meel protection oo kale meel yaraan tusaale ka soo qaada qowmiyadda amxaarada filimada ay sameeyaan oo af amxaarka ay ku sameeyaan waa shirkado waaweyn oo filimada actorkii filimkan sameynaya heshiisa la gala sidii shuruucda caalami ah ma garatay waxaa jira markay filimkaas actoradii dadkii ka qayb galay iyo producerkii wixii maaliyadii la galiyay waxaa laga helay 10 jibaar ay hadhow ka helayaan shirkadda actorkana waxay ku leeshiyeen intaas Soomaaliya okay filimkaas maxaa keenay sidoo u socona sidoo u gadmaya waa su'aasha meesha taalo hadda sababa daradaba ilaa meel kasti waxaa jira sinimooyinkii hore ilaa hadda filimka markuu soo adduunkana way ka jiray hindida ilaa hadda saas way filim kasta soo ba sinimooyinka loo qaybina hay'asiisiya loo sameynaya hordhaca loo sameynaya marka meesha badi ay ka helaan waxay ahayd sinimooyin baa jira la fiirsanayo magaras shirkadii soo saartay shirkad kale jirta ka qaadanaysa consent contract magarate way soconaya hadda intuusan YouTube ka imaanina intuusan YouTube ka hadda aan la bilaabo waxa jiray bahal yiraahdo CD-ga oo kale lagu sameynayo maana CD marka waxa jira meel oo stuudiyaasha lagu iibin jiray way Soomaaliya saalan ku saa ama ajaladii hore Americano okay dadka Soomaalida markaan ku leeyahay ayagana reason ka sabab bay u leeyihiin aan ku sheegaya qowmiyadaha kale markay soo iibsanayaan stuudiyada way soo iibsanayaan xabadii Soomaaliya qiimaha rabaan ku iibsadaan gurigiisa uu fiirsanaya kan dariskiisa isii ma dhahayo ama aan daawado asagina uu baxaya uu soo iibsanaya ganacsigii Margaret ayaa fiican laakiin Soomaaliga hal markay soo iibsadaan xaafadaas oo dhan hal oo waxay ku daawanayaan oo CD waxyaalaha uu socon laayahay haddana waxaaba yimid wax la yiraahdo YouTube Margaret dhalinyaro fadlan oo maaliyad ka soo saara YouTube hadda Soomaalida shaqo abuur bay u noqotay inta badan YouTube yaal ay sameysteen ma garatay dhinac kale oo ka soconaya sinimooyin ma geeyno annaka waxayna tusaale aan ku soo qaadaa meel kale jigjigadan tan Soomaaliya sinimo way lahan jirtay suuq sinimoogi hadda waxa laga dhigay meel oo baqaaro carwo laakiin inay taalo waa fiicnaan lahayd wagar Soomaaliya laakiin sinimooyinkii hore oo Addis Ababa Makale Minaamin sidii u yaalaan marka waxa caqabadaha annagana haysta ma taqaanaa ma isticmaalno annaka wax la yiraahdo sinimo ama shanemo ma garatay taas ayaa caqabado hor iman karta iyo dadkii oo shacabkeena oo wixii aan iibsanaynin wax shay adan la iibsanaynina waa dibkeeda leedahay shirkado badan ayaa khasaaraya markaas ilaa filimka la sameeyay maalgeliyad baa galas lacag baa galas juhdiga qof kasta ka qayb galay lacag uu baahan yahay marka xagee laakiin ani hadda tusaale ahaan aan ku soo qaadaya meel dheer tagan xasanow ani hadda filimkeegii shanaad hadda soo baxay Soomaaliya wallahi oo billahi oo tallahi Soomaaliya wax faa'iido aan ku qabay ma jirin ama intaas mira ka heshay wallahi aniga ayaa jeebkayga gelin jiray oo shirkadahaasi dadka qaarkood waxay dhigi jireen adi miyaad waalan tahay may deegaankayga imid laba arrimood baan u sababan karaa anigoo deegaankaygan aan dhinaca jilinka way dad badan hadda markaan ku qorno filimkaas jigjiga laga soo saaray magac weyn uu noo yahay dad badan ay YouTube waxay ka bixiyeen comment ay leeyihiin jigjiga waa meel fiican jigjiga waa hoygii filim sideedii hore ku warsame hala waa ku baanaya aba warsame maanta waxaan kugu yeeray arrin adiga ku saabsan mustaqbalkaaga inaan kaala sheekaystaan doonayo waayahay maxma aba maxay tahay arrinta doonaysa inaad igala hadashay aba waa dareemi kartaa wiilkayga aan jecelahay inaad tahay aba waxaan rabaa inaad gabadhii Leila ahayd saaxiibkayga u dhalay inaan ku doono ayaan doonaya guur aba macaan waa mustaqbal laakiin aba anu xilligan
diyaar uma yahay guur sababta diyaar ugu heen maxay tahay aabba aniga waxaan jeclahay gabadh hiba la yidhaahdo oo hadda Sweden joogta ballanna waxaan ka qaaday markay soo laabatay inaan guursanayo marka arrintaa ma samayn kara iga daa ma qof Sweden hadda ku maqan oo imika Sweden tagtay ayaad mustaqbalkaaga oo dhan u baabi'inaysaa aabbo miyaadan ogeen wiilkayga curadka ay tahay oo kaliya aan haysta inaad tahay gabar imika maqan waqti imaanayso inay isbedel ku dhacayo maxaad ka ogtahay aabba laakiin gabadha waan jeclahay haddaa jecesha jacaylkaaga kuma diidani aabba aniga saan kugu sheegay hadalkayga inaad yeeshid ayaan jecelahay maya aabbo way ugu adag tahay haddiiba aan guursanayo